وكسان كريدا نعلا كويان kulan wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka shalay galinkii dambe ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ilaa haddana qaybo ka mid ah oo magaalada Muqdisho laga maqlayo dareenka rasaasta iyo sidoo kale hubka culus oo isku adeegsanayaan dhinacyada waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay diyaar garowga iyo sidoo kale hub urursiga oo weli ah mid markaasi socda isla markaana xaaladiisu ay tahay faanoola fari kama qodno iyadoona dhanka kale ay socdaan dadaallo nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Banaadir oo ugu horeeya ogaaska guud ee beesha Mursade waxaan kula wadaagayaa halka ay wax marayaan waqtigan dagaalka halka uu ka socdo iyo sidoo kale gulaha ilaa hadda dhinacyadu ay kala sheeganayaan marka la fiiriyo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay iska soo xirto mid ka mid ah labadii furin ee ugu waaweynaa ee dagaalka uu kaga socday oo ah furintii Xasan Cali Qirre ee Bermudo iyo sidoo kale midii Mirnaayo waxay dowladdu ku guuleysatay in gebi ahaanba heshiis xabad joojin oo ku meel gaara laga gaaro furintii Bermudo ee Xasan Cali Qirre uu ku sugnaa soo dhawow qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa iyo wixii soo kordhay inta tabintan aynu ku guda jirno haddii tahay booqashadaadii ugu horreysay nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalka like gare qaybta faallada ee commentigana aragtidaada ku dhiibo dii aad horey noola joogtayna waan kaga mahad celinaynaa hagaaga sidaad wada ogtihiinba magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shalay galinkii dambe waxaa ka bilowday dagaal aad u xoogan kaasoo u dhexeeyay ciidamo taabacsan garbyada mucaaradka Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Qirre iyo ciidamo si toos ah uga amar qaato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka ayaa ka bilowday isgoyska Mirnaayo iyo sidoo kale aagga Bermudo waxaana inta badan dagaalka xooggiisa shalay uu ka bilowday aagga Bermudo uu deganaa ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qirre xildhibaan Jacfar iyo siyaasiyiin kale oo isku heeba isla markaana ka soo wada jeeda beesha Mursade dagaalka markaasi ra'iisul wasaare Xasan Cali Qirre guriga uu deganaa lagu wekeeyay waxa uu qaatay waqti dheer iyada oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuldareysteen inay soo afjiraan howlgalkaasi isla markaana ay gudaha u galaan xindaabka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qirre waxaana jilbaa u aastay ciidamada taabacsan garabka ra'iisul wasaaraha kuwaas oo dhagta dhiigga u diray askar badan oo ka tirsan kuwa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida tooska uga amar qaadanayay gadid dagaalna halkaasi dab ku qabadsiiyay ciidamada garabka Xasan Cali Qirre waxay ku guuleysteen inay gubaan laba beebe oo ay wateen ciidamada sida tooska uga amar qaadanaya Xasan Sheekh madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday waxaana guuleystay qorshihii Xasan Cali Qirre iyo sidoo kale ciidankiisa ay dejiyeen ahaa inaan loogu soo gelin aagooda isla markaana iska difaacaan dagaalka oo soo gaaray saaka ilaa iyo sidoo kale duhuradii waxa uu ahaa mid ay markaasi gacan sarreyntiisu lahaayeen ciidamada daacadda waa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qirre dadaal dheer kadib waxay dowladdu ku guuleysatay in erga waanwaana ay halkaasi u dirto waxaana ka mid ah wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya oo isku heeb yihiin ra'iisul wasaare Xasan Cali Qirre ninka lagu magacaabo Xasan Macalin waxaana uu ku guuleystay iyadoo markii hore uu diiday ra'iisul wasaaraha in uu la kulmo ama uu soo gala xindaabkiisa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale odayaal dhaqan oo ku sugnaa hoyga ra'iisul wasaaraha uu deganaa oo ugu horeeya ogaaska guud ee beesha Mursade ogaas Farcade waxa uu Xasan Macalin bilaabay wadahadal uu dib kaga soo biray taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad kaasoo ugu dambeyn markaasi ku qanciyay ra'iisul wasaare Xasan inuu halkaasi si ku meel gaar ah ugu guuro isla markaana uu guuro aagga jayga ra'iisul wasaaraha ayaa qaatay soo jeedinta mas'uuliyiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka taasi oo ahayd inuu ka guuro aagga Bermudo hoygii uu ka deganaa laakiin waxa uu diiday gebi ahaanba in ay markaasi si guud u baneeyo aaggaasi waxaana aagga Bermudo gurigii uu ka deganaa uu kaga tagay ciidamo daacad waa isaga kuwaas oo weli halkaasi ku sugan isla markaana difaacyadooda ay u xiran yihiin waxaa galbiyey ra'iisul wasaaraha taliyaha nabad sugidda iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda isagoona hore u sii kaxeystay boqolaal askari oo ka mid ah ciidamada daacadda iyaga oo fariisin cusub ka samaystay aagga jayga oo ay u guureen isla markaana ay degeen dad badan waxay isweydiinayaan sababta dagaalka ugu xoogan loogu qaaday aagga uu degan yahay ra'iisul wasaare laakiin xaqiiqadu waxay tahay